محمد مبارك إن شاء الله تعالى وحنو إدون سو سيارتي إلهي درتيس بان إدون سو سيارتي أول waxa laga yaabaa sida walaalkay sheegay inaanu xumaanta isku garabsano marka insha Allah ta'ala walaalayaal khayrka ayaynu isku garabsanaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin ilaahay baa mahad iska leh ilaahay nimcadana siiyay barwaaqada aniga iyo Axmed khayrna isku kaaysimay ee colkii kalena naga soo saaray alxamdulillaahi rabbil aalamiin ilaahay baan u mahadnaqaynaa marka hore mar labaadka wala xusaa qofka ku duubaya kabrada marka ugu horeysaba waxaan naga duubaya halabuur cawl bile waxay la jooga walaalkay Axmed Khayr Axmed Biif baynu oran jirnay markii hore aan istimar walba waa xusuus way gashaa waxaan sidnaa khayr markii horeba de waxa shadaadinta waa naga dhageysan jirtay laakiin khayrka faafiya wacyi gelin baan sidnaa maxaadiraan sidnaa wax qurux badan waa ku faraxsanay maanta inaan wax wanaagsan naadinayno oo bulshadeedii u sheegayno aad baan ugu faraxsanay ma sha Allah walaalkeen baa wuxuu inoo galayaa maxaadiro waxaan ku dhigaynaa guuleed maalinta jimcaha galabta jimcaha hadii Ilaahay yiraahdo saddexdii barka marka salaada laga soo baxo way inoo guuleed kaalaya oo khayrka soo camira markii hore waa noo ima jirtayna khayrka noogu kaalaya oo aan soo dhaweyno wax wanaagsan baanu sidnaaye nala qaata imikana waxaan idinku soo dhaweynayaa walaalkay ma sha Allah cisi sharaf ku noolaada sharaf korkiina haato khayrka soo camira khayrka kaalaya ma sha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala nabiyil amiin محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولا ليال سيدا أولال كشاقي محمد مبارك إن شاء الله تعالى وحنو إدون سو سيارتي إلهي درتي اسمان إدون سو سيارتي إيو إنان أصحاب تيدي إيو صاحب ديدو هوريتو عن وحير لقاتو runtiina aanu isu sheegno khayrka iyo maaragtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala dariiqiisa toosan ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala nawaafajiyay aniga iyo asxaabtaydii horeba marka walaalayaal Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu quraankiisa ku leeyahay wa ta'aawanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'aawanu 'ala al-ithmi wal-'udwan oo macnaheedu yahay isu kaashada khayrka iyo wanaaga iyo Allah ka cabsiga isu kaashada ha isu kaashanina dambiga iyo xadgudubka ha isu kaashanina marka walaalayaal insha Allah ta'ala dhamaanteenba waxaan ila ka rabaa inaynu khayrka isu kaashano wanaaga isu kaashano Ilaahay dartiis maartay aynu isu soo booqano Ilaahay waxay adduun iyo aakhiraba ay dani inoo ku jirto aynu isxusuusino wixii adduunka maartay intaynu joogno in khalkhal gelinaya oo aakhiradeenni in ka mashquulinayana inaynu isaga degno wixii in ku boorinaya wanaageena iyo khayrkeena iyo horumarkeena iyo sidii Rabbi subhanahu wa ta'ala u raali inoo ka noqon lahaa adduun iyo aakhiraba inay ku jirto diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala aynu qaadano dariiqii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aynu ku qaadano asxaabadii iyo taabiciintii iyo sidaas laga soo gaaray halka jidkaas inaynu maro marka sidaas awgeed waxaanu insha Allah ta'ala rabnaa wanaaga iyo khayrka inaanu isku garabsano awal waxa laga yaabaa sida walaalkay sheegay inaanu xumaanta isku garabsano marka insha Allah ta'ala walaalayaal khayrka ayaynu isku garabsanaynaa sida uu walaalkay sheegay insha Allah muhaadaradaasi waxa nagala soo qayb gali doona mashaayikh waaweyn oo uu kamid yahay Sheikh Ahmed Eid xafidahullah Sheikh Abdullah Barbarawi xafidahullah iyo dad kale iyo asxaab kale oo fara badan oo uu kamid yahay Abwaan Yusuf Shaacir oo runtii ahaa abwaaninta Soomaaliyeedna kamid ah haddana dhamaantaya aanu khayrka isku garabsanayno marka insha Allah ta'ala walaalayaal insha Allah guuleed hotel maalinta jimcada ah baa insha Allah ta'ala hadii alla na gaarsiyo inoo ballama halkaas ayaanu insha Allah ta'ala dhamaanteenba aan ku kulanno wixii khayra aan isu weydaarsano wixii insha Allah ta'ala adduunyada iyo xaalkeedana aan isaga degno meesha akhiran lagu dambeyn doono waa aakhiro
aakhira ayaa badan adduunkuna waa wax yar oo kooban oo waa ka tegaynaa marka insha Allah ta'ala dhamaanteen khayrka Allah ina waafajiyo marka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh